السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada barnaamijkeeni raha bulshada iyo waxay baahiyaan maanta waxaan noo hayaa walaasha farxiyo bisiye oo aad iyo aad u faraxsan waxay sheegaysaa in aad iyo aad ugu qosashay maskaxda iyo xaqiiqooyinka ay ka hadlayso qofkan ay soo sheer garaysay fikirkiisa waxay ku magacawday buula qareen in isla akhrino qofka fikirkiisa ayahay ciwaanka hore waxaa la yiraahdaa jirkeyga anaa iska leh ayahay gabadhan waxay sheegaysaa in ubadka aan intii ay rabtay ay dhashay dhakhtarkana ay ka codsatay markii ay in badan ka fikirtay kadib in ay ka codsatay dhakhtarka inuu ka saaro makaanka marka dhakhtarku wuxuu hadallo badan buu ku yiri qoraalkeedu kale uu badan yahay waxa ka mid ahaa dhakhtarkii miyaad ninka kala tashatay marka waxay tiri waan u sheegay inaan mar dambe ayaan ku warbaytir waan u sheegay inaan mar dambe doonayn ubad inaan dhalo dhalmadana aan hawlaheeda aan fasax ka qaadanay markaa ma ogi weyn dhakhtarkii ka oran markaa ma ogi aan uga sheegayo dhakhtarkii intuu qosay waxa tahay qof xorowday yaa ka hadalkeeda ay tiri markaan gurigii ku laabtay waxaan ka fakarayay tolo maxaad adigu iska leedahay midin ma jirtaa waxay tiri afkaaga tolkaabaa raba inuu yeesho maalkaaga isaga ayaa iska leh jirkaagii aad islahayd waad hantidaan qof kale lagu leeyahay kula maamulo anoo yaab ayuu ninkii aan wada joogno hadalkii marka inantaas horta waxay la yaabsan tahay inay jirkeeda iyadu kaligeed lahayn waxaan doonayaa inaan ka jawaabo horta kan adigu maxaad iska leedahay muuminadaay iyo ninka muuminka waxay ogyihiin inay wax si buuxda ay u leeyihiin aanay adduunkan jirin wax kasta ilaahay uu siiyay uu xadiday inta ay ka isticmaali karo iyo sida uu isticmaali karo iyo cidda uu la isticmaali karo iyo goorta isticmaali karo taasi waa taas tan afkaaga tolkaaba kula leh anagu ma ogin afkaaga si tolkaaga kula leeyihiin walba waxaan ogayn soo afkiisa leh waxay tirmaalkaagana isaga kula leh waxaynu ku ognahay sharciga islaam hadeenahay iyo dad muslim hadeenahay inay gabadhu ninkeeda maalkiisa la leedahay ninku si aan maalkeeda la lahayn haddii gabadhii ay diinteenu ay tiri maalkeeda lama lihid anu malaynayaa waxay sheegaysaa reer galbeedka gabadhu inuu ninku maalkeeda la leeyahay ay fikradan ka keentay inay shuraakay tan waxaan anigu doonayaa inaan iska saaro waayo jirkeyga aniga iska leh gabadha tiri jirkeyga anaa iska leh waxaan doonayaa iska saaro waxay leedahay hadalkii bay noo sii wadaa waxay tiri ninkeyga waan ku wuri haddii aad doontid inaad ilmaha iska soo saartay yacni haddii aad ninkeyga waxaan ku wuri bay tiri haddii aad taranka iska joojin lahayd adigu adigala tashan lahayd marka xiiso wuxuu warbaytir oo waaya iskaga joojinayo waxaan ku warbaytir yaan anigu rabo sidaas maxaad samayn lahayd wuxuu warbaytir maxaad saga soo joojinaysaa taran ma doonayo sida mar dambe 9 bilood uu yeesho wadna xanuun igu dhaco matag iyo madax ware 9 bilood ku jiro naftayda karho dabeedna lay qalo dabeedna 2 sano hurdo la'aan igu dhacdo adna aad waliba igu darto iyo daryeeshidiyo iyo warhay horta inay saafan xun u sawirto inay hooyo noqoto qoftu ay saafan xun ay u sawirto wixii macaanaad iyo dhibaato ay ka dhig waa fikir ay qabaan feminism ay leeyihiin wax dhalistu waxa weeyaan dabarka haweenka lagu dabwaana lagu gumaysto marka inay saafan xun u sawirtaan waxa dareemi karayo sida uu qalbigeedu u qalalan yahay qof waaye ilmo meel allaala meel uu ka cirsado ilaahay ilmo ka siina waaye in ilaahay nimcadu siiyay ay ku xadgudubtay tiraahdo ma rabo wax la yaabay waliba saafar xusuurto waaye wuxuu u warbay tiray ninkayga qof bilaad diina waa tahay diin iyo sunno waxba kama garanaysid iimaan ma lihid aad in yar qadarin yahay soo xaasoo kale imaatmaadeen kulli hadal baa dhex maray waxaan ugu jawaabay bay tiri jirkeyga anaa iska leh anaana xor u adiguna qof guri laga kireeyo kii ugu darnaa waa tahay ee ogow inaan makaanka iska saari doono oon talana kaaga baahnay dabeetana hashtag ma ogiye inaan waaban aasana tan jirkeyga anaa iska leh waa tii farxiyo cabsiye maalintii dhaweetoole dadku kaga qeyb ilaa culimadii ay soo istaagayaan leeyihiin ninku hadduu gabadhiisa maaragtay uu de wax ka qaato kufsi maaha muxuu ahaa gabadhaada haddaad wax ka diinteenu waxayna ina tiri marka gabadhaada marnaba qof bini aadan jirkiisa inaad jirkiisa miyuu leeyahay xaas adan ku weydiinaya xaaskaaga maadaa leh miyaad leedahay gabadha jirkeeda mayada iskale miyaad la leedahay miyaad yeelan kartaa ayna weydiinaysaa farxiyo cabsi waxaan kaga jawaabaynaa gabadha jirkeeda ninku ma laha iyaduna ma laha ilaahay baa iskale ilaahayna wuxuu u jideeyay baa lagu qabanayaa guur marka ay timaadana labada qof shuraaka ayay wada galeen
qof walba waxbuu yeelanayaa shuraakadan uu galay waxbuu yeelanayaa waxna waa lagu yeelanayaa ninku guurkan shuraakada uu soo galay waxbuu yeelanayaa waxbuu ku helayaa waxna isagaa lagu yeelanaya laga qaadaya gabadhana sidaas la mid gabadha waxa ugu weyn laga qaadayo ee lagu yeelanayo waxa weeyaan jirkeeda ninkana waxa ugu weyn laga qaadayo lagu yeelanayo waa jeebkiisa waxyaabo badan si isku mid ah ay u wada leeyihiin oo labadooduba marka gabadhu jirkeeda ma lagu leeyahay ninku muu leeyahay waaba su'aal khaldan haddii uu qof shuraaka galo miyaa lagu oran karaa meelaha ku oran karaa aniga xor baan aho waxa leeyahay malaha miyaa cid ba wax igu leh soo anu xorriyad madi miyaa la yeeshay hal loogu jawaabaya ta aduu miyaad gelin shuraakada warkoo yar cid ba ku qasabtay maya teem hona shuraakada ka bixi kartaa laakiin wixii shuraakadu keensanayso damarna ha fataatay tan ay leedahay ninka jirkan ka kireeyay wax laga kireeyay ka ugu xumbaatay jirkan kireeyay anagu maana fahmin tan inaad iska saari doonto ninku hadii aad horta xanuun ku keenan walaa nin walaa naag baa horta la eegay runtu waxay taagantahay ilaahay ma ogol yahay mise ma ogola waayo ninkuna jirkan malaha adiguna malihid jirkan in aad iska saartid qayb kamid ah ilaahay ma ku ogol yahay ka horeysa inaad culimada weydiisay ayaa kaaga horeysa inaad wadaad aad diktoorka ula tagtay aad leedahay isaga aan ku leedahay waxba kaama weydiinayaan hatta culimada haday ku fatwooto xaq buu u leeyahay inaad weydiiso ma iska saari karaa sababtuna way fududahay sababtoo ah waxa shuraaka kula gashay jirka shuraakada kula gashay waxa kamid ah ilma galeenkan uu filaayo inaad ubad u dhashay marka saasaan insha Allah kaga jawaabeynaa islaanta farxiyo cabsiyana waxaan leenahay farxiyay aad taas oo dhan ugu faraxsan tahay oo taas oo dhan u qoslayso oo maskax badnaan ugu sheegayso haweeneydan ka soo horjeeda ilaahay sharcigiisii ee leh anaa jirkayga iska leh adiguna aad meelaha ka leedahay jirkayga anaa iska leh waxaan ku leeyahay farxiyo cabsiyay waxaad ku jirtaa xarbul ibliis dagaalku umada ku waday ayaad adiguna qayb ka tahay umada dagaalka aad ku wada ka jooji umadan qarankeeda hore uga burburee qoyskeedana ha ka burburinina rag iyo dumarka iska hor keenina balaayo aan jirin bad abuuraysaan abuurka naga joojiya haddii aad dhibaatooyin badan bay umadu leedahay doonaysaa inaad xalisaan xaliya laakiin dhibaato aan hayninba waad naga dhex samaynaysaa ilaa xad baanu diidan